taagan milkiilaha la sheegayo waa la wada garanayaa safiirku milkiilu iskii laakiin hore sii socdon sii sheega ninaan saaxiibo nahay dadkaan yaqaanin oo Fahad Yaasiin la yidhaaho cali iyo jaamac caasho kale ma jirto milkiilo waa la yidhaaho waxaan rabaa mugta dadku inaanay waxba aan la isku duugduugin oo la kor marinay sida wax walba magac ay leeyihiin inaan u bixinaan rabnaaye Fahad madaxtooyadu agaasimo ka noqday waa la ogyahay wixii madaxtooyada ka dhacay markuu agaasimaha ka ahay hay-adda nabad sugiduu tegey waa la ogyahay wixii nabad sugidda ka dhacay wuu kala diray nabad sugidda waa dumiyey dumintii uu dumiyey ayada keligeed ma dumine ciidanka booliska soomaaliyeed waa dumiye oo nabad sugidduu kor dumiyey maantana siyaasadda waxa dumiyey waa isaga waay madaxweyne wiilkaadii ambasador raalaaw magacyada in la sheeg ma jecelide waa runta waaye waa sheegaynaaye dad adaa keenta milkiilaha marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inay fahmaan saaxiibkay Fahad wiilkayga disaster uu ka shaqeeyo waana u sheegnay caawana publicna hoos waa ugu sheegnay publicna caawan ugu sheegaynaa siyaasadda oo ciidamadii xafiiskiisa ka shaqeynayay doorashada maamulana uu leeyahay waa dumin siyaasadeed waaye meeshana khusayso waaye amniga waxay ahayd hay-ado khaas iyo dad khaas iyo waajibaad khaas midaan annagaa diidayno waxa maanta loo shirayo oo biri loo shirayo biri daba loo shirayo ka mid tahay siyaasadda dalkan in la dumiyo ma ogolaanayno